ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaad waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiigiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas'uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal تنازل كرسي لماذا دلانين كلمانا دلانين ومدى مصالح ذي دنه هذا وح بدن باللوجة تجا دنها خاص كعب اللوجة تنازل وخير يا مصلحة نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه كما في صحيح البخاري وغيره ما لنا سجوا خطبين يا أو مدى خطبين يا ويل كيسي حسن أيا كرسي يا الله صوفوا من بركة نبي قوات شلعي صلى الله عليه وآله وسلم مركز وحده النبي صلى الله عليه وسلم ويل كيغن وسيد النبي صلى الله عليه وسلم إلهينا وحوكو إصلاح دونا لبكو حوض مسلمين ووين أو دقالمية أيو إلهي السبب وقد دونا إن مصلحة نحضو ضرنحضو حسن بن علي بن أبي طالب sanadkii afartanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii la isku hayay Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma sanadkana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta aamul jamaa xadiidkii bishaaradii nabiga xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimka buu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyay sharaf male nin ummadiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakhiraba tanaasul oo maslaxada u tanaasul